sheekadan waxay ugu dhacday 2 toddobaad ka hor. xilligaas waxaan balansanayn gabar aan saaxiibo ahayn. weliba waxaan ku balansanaa xaafadeeda oo ayada ayaa i balmisay. xilligaas guriga waxaa joogay wiil walaalkeeda ah. xoogaa markaan sheekaysanay ayaan gabadhii waxaan kala kulmay hadallo aan inaba aan caadi ahayn. inta badan aniga waxaan ahaa qof xanaaq badan. aad baan u carooday oo guriga oo idil ayaan isaga soo dhaqaaqay markay igu tiri hadallada qaar. laakiin waxaan ogaaday in walaalkeedu uu yahay nin gaangistar ah. mana aanan ka filaynin sababtoo ah aniga waxaan aad u jeclaa runta. laakiin waxay noqotay mustaqbalkayga. dabcan gabadha aad baan u jeclaa aniga. waxaan rabay in aan guursado xitaa, laakiin way suurtageli weyday. habeennimadkii waxaan islahaa waxaad soo laabanaysaa adigoo aad u faraxsan, laakiin waxaan soo laabtay anigoo aad u niyad jabsan. waxaan iloobay xitaa in aan gaari watay in kale. ugu dambayntii sidaan u socday anigoo aan miirba lahayn ayaan waxaan is arkay in aan imaaday meel beer ah. waxaa maantoo idil igu soo naqnaqsamayay hadalkii ugu lahaa walaalkeedii. oo waxaan arkay meel la fariisto. sidii ayaan isaga fariistay, weliba anigoo ka fikiraya wixii maanta dhacay. habeennimadkii meesha ayaa ahayd meel cabsi badan. waxaan dareemay in meesha ay wax ka soo shanqarayaan. waxaan ahaa mararka qaar qof cabsada, waxyaabaha qaarna ka baqa. waxaa ii soo dhacay gabadhii masjid ee ii soo dirtay. waxay ii soo dirtay, okay miyaad tahay? waxba ha u bixin cashirka yar oo maanta aan ku tusay. kadibna aad baan u walwalay oo waxaa ii xigay gaari ayaa iga soo horbaxay. malaha waxaan isdhahay gaarigan wuu igu daba joogay. leerka ayuu indhaha iga qabtay. aad baan u yaabanaa. kadib markaan arkay in aan leerka laga daminaynin ayaan naxay. wax kale maan isdhihin. waxaan isdhahay waa gabadhii. kadibna masjid ayaa ii soo dhacay. fadlan haddii aad nin rag tahay halkaaga istaag ayaa laygu dhahay. kadibna waan istaagay. waxaa soo baxay nin aan weligaan arkin intaan noolaa. ninka ayaa wuxuu ahaa nin bidaar leh. kadibna indho waaweyn waa uu lahaa. waana cabsaday. waxaan isku dayay in aayar aan isaga soo dhaqaaqo meesha. kadibna leer ayaa la soo daaray. si cabsi leh ayaan gadaal u fiirinayay. waxaan dareemayay in gadaasheeda ninkii uu soo socdo oo gaarigeen si tartiib ugu soo socdo. waxaa meel gees iga soo baxay aan sikadiis ku arkay 2 nin kale oo ayagana ka soo baxay qayb ka mid ah beerta. mid ka mid ah wuxuu igu dhahay, waryaa istaag meesha. waryaa waxba ha baqin. kiiskan adiga ayaa abuuriyay. gawar walba maalin walba sidaa u jeclaanaysay. hadda maanta bal arag natiijada gawar walba la jeclaado. istaag. nin rag haddaa taa maanta meel naga baxso. kadibna waan xanaaqay oo waxaan ku dhahay waxaad iga qaadi kartaan hadda iga qaada. waxaa ii xigay in afka layga qabto. waxaan dareemay in aan miir daboolmay. kadibna waxaan kor dheer ka dareemay in la ijir dilayo oo miirkii oo idil ayaa iga qaadsamay. kadibna cabbaar aan hawada dhan ka maqnaa ayaan waxaan soo toosay anigoo aad u rafaadsan. xitaa sarwaalkayga sinyeeri wuu furnaa ii suunka. mana garan karin wax lagu sameeyey. waa naxay oo rag ayaa agteedii fadhiyey. waxaan ku dhahay halkee baad ii wadataan? mid ka mid ah ayaa igu dhahay guriga hooyada ayaa lagu wadaa. kadibna waxaan dareemay in aniga maanta aan afduubanahay. waxaa ii xigay in madaxa fiir laygu dhuftay.
oo miirkii ayaa iga qaadsamay. La soco sheekadan qaybteeda kale. Fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saaro si aad u aragto sheekadan qaybteeda kale, gambaleelkana furo. Waa mahadsan tahay.